magacaygu waa Nadra Saalax Cabdi waxaan yahay gudoomiyaha gudida horumarinta adeega bulshada baarlamaanka federaalka 11aad gudidaydu waxay ka mas'uul tahay horta inii sheega caafimaadka wasaaradda caafimaadka hoos timaada wasaaradda waxbarashada wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo social affairka iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaan la shaqeeyaa hay'ado kala duwan mid waxay ka tahay nafaqada iyo badqabka cuntada nutrition and food security aad waxaan uga shaqeynaa oo istaraatiijiyadeeda ku jirta shuruucda aad baa looga hadlaynaa shuruucda sanadkan waxaa iman doonaa aan iminka kala fadhigan ka hadli doonaa sharciga daawooyinka because dalkeenu sanad wuxuu soo maray burbur badan ba looma sameeynin sharci daawooyinka ka hadla amba xadidaya soo dhaadhacsinaya iyo soo dejinaya yaa bixinaya marka aad baa u arki doontaa kala fadhigan waxaa soo galayna wasiirkii saaxiibkay xildhibaan jaamac bare aan ku soo dhaweynayaa maasha allah alxamdulilah walaalo marka sharciga daawooyinka waa sharciga noogu muhiimsan aan fadhigan aad looga shaqayn doonaa waxaa arki doontaan inuu insha allah hergeli doono sanadka cusub marka xuquuqda iyo tacadiyaadka laga hadlayo waxaa jira guddi haweenka iyo xuquuqal insaan waxaa ka mas'uula inaan haweena marwa xildhibaan xaawa sukar yaduna aad bay ugula shaqaynaysaa wasiira khadiija diiriya in sharcigan kala fadhiganna la bilaabo laga shaqeeyo oo dadkana loo yeero because sharci meel ma marayo hadaa public hearing la sameeynin hadaa dadka la weydiinin maxay ka qabaan sharcigan marka waxyaabahan aad uga shaqayn doona waxa weeyaan in public hearing public engagement la sameeyo waxaan ogyahay inuu shirkan oo aad uga hadli doono horumarinta dhalinyarada iyo haweenka waan dhageysan doonaa doodaha kala duwan because way fiicantahay inaan ogaano istaraatiijiga banaadir gobolka banaadir sanadkan uu sameyn doono 2023 waxyaabaha baarlamaankuna ka shaqeeya waxa weeyaan in oversight la xisaabtan marka hadaan leenahay gobolku waxaasan ka doonay inuu sameeyo de waa inaan ogaano sida loo hergelin doono iyo outcome-ka marka la xisaabtan adag baa iman doona iyo wada shaqaysi aad u mahadsantihiin mar iyo laba jeer bishaaro waxaa lagu bishaareynayaa haweenka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho guud ahaan dalka in magaalada Muqdisho laga daafuray xarunta qurux dumar oo aad ka heli kartaan dharka haweenka noocyadiisa kala duwan sida taashashka arooska oo aad la indhadarayso markaad dheehato bacweynayaasha ay ku labistaan haweenka ha ka reebin dharka hidaha iyo dhaqanka oo si gaara lagugu diyaariyey boorsooyinkii ugu dambeeyey lagu talagalay xarakada kabaad u qurux badan iyo agab kale oo ku cajabgelinaya waxaad ka helaysaa xarunta qurux dumar oo ku taala waddada Maka al-Mukarrama kasoo horjeedka hotel Maka al-Mukarrama wixii faahfaahin oo intaasi dheer kala xiriir taleefanada tirsigoodu yahay eber 6937777 ama eber 6937777 15